مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعلهم في الوفاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ardayda ku xiran channelka Sayda Academy waxaan idin leenahay maalin wanaagsan, maalintiina ha idin wacnaato. dhammaan iyo ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ayagana waxaan leenahay maalintiina ha idin wacnaato. inta xanuunsan Ilaaha caafiyo, inta caafimaad haysatana Allah u siyaadiyo. insha Allah casharkeena ayaan bilaaban doonaa. casharkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay wada sheekaysigii sideedaad am conversation 8 wuxuu leeyahay which is better for you to have wealth or to have knowledge. which is better keebaa fiican for you to have inaad leedahay wealth maal or to have knowledge ama aqoon. which is better keebaa fiican for you to have inaad leedahay wealth maal or to have knowledge ama aqoon. yani keebaa fiican inaad leedahay maal ama aqoon. wuxuu leeyahay b marka muxuu leeyahay it's better for me, it is better for me aniga waxa ila fiican to have a wealth inaan leeyahay maal. because maxaa yeelay if you have a wealth haddii aad leedahay maal you can get it everything, waxaad heli kartaa wax walba you like aad jeceshahay with your money lacagtaada. يعني lacagtaada waxaad ku heli kartaa wax walba oo adiga aad jeceshahay ayaad lacagta ku heli kartaa. wuxuu leeyahay marka in my opinion aniga fikradeyda it's better for me waxa ila fiican aniga to have knowledge inaan leeyahay aqoon. because maxaa yeelay knowledge aqoontu is light waa iftiin weeye. yani wuxuu leeyahay aqoontu waa iftiin but laakiin ignorance jahligana is a dark waa mugdi. yani jahligu waa mugdi and you know waxaad ogtahay amaad garanaysaa that learns person qofka wax bartay horiidis inuu hogaamin doono ama hogaamin kara the world adduunka. yani qofka wax bartay wuxuu hogaamin karaa adduunka. b wuxuu leeyahay marka thank you waa maasan tahay. waan ku soo celinayaa conversation 8 which is better for you to have wealth or to have knowledge. keebaa fiican inaad leedahay maal iyo aqoon. which is better for you to have wealth or to have knowledge. keebaa fiican inaad leedahay maal iyo aqoon. wealth waxa weeye maal weeye, knowledge waa aqoon weeye. okay wuxuu leeyahay marka it is better for me aniga waxaa ila fiican to have a wealth inaan leeyahay maal. because maxaa yeelay if you have a wealth haddii aad leedahay maal you can get it everything, waxaad heli kartaa wax walbo you like adiga aad jeceshahay with your money lacagtaada. marka yani wax walba adiga aad jeceshahay lacagtaada ayaad ku heli kartaa. okay in my opinion qofka wuxuu leeyahay marka ama wuxuu leeyahay in my opinion aniga fikradeyda it's better for me waxa ila fiican aniga to have knowledge inaan leeyahay aqoon. because maxaa yeelay knowledge is a light aqoontu waa iftiin but the ignorance is a dark jahliguna waa mugdi. and you know that waxaad garanaysaa ama ogtahay that learned person qofka wax bartay leaders inuu hogaamin kara the world adduunka ama hogaamin doona adduunka. wuxuu leeyahay thank you so much waad mahadsan tahay. marka casharkan wuxuu ka hadlay waxa weeye lacagta iyo ama maalka iyo aqoonta keebaa fiican. so waxaan ognahay dadka intooda badan waxay jecel yihiin lacagta, inay lacag yeeshaan. dadka Soomaaliyeed aad bay u jecel yihiin, dadka qaarna aad bay u jecel yihiin inay aqoon yeeshaan waxbarashada ay ku dadaalaan. laakiin aniga macallin ahaan waxaan leeyahay ha lagu dadaalo waxbarashada sababtoo ah waxaad mustaqbalkaaga aad ku dhisan karto waxa weeye aqoon weeye ama waxbarashada weeye. haddii aad wax barato aqoon aad yeelato waad shaqaysanaysaa oo qalinkaaga baad ku shaqaysanaysaa. marka casharkan waxaan u talagalnay dadka ardada inaan ku fahansiino aqoontu inay muhiim tahay. for example caawa haddii lagu yidhaahdo wada iftiin ah iyo wada mugdi ah keebaad ka baxaysaa, qof walba wuxuu dooranayaa wada iftiin ah. so marka aqoontu waa iftiin, jahligu waa mugdi.
marka casharkii halkaas ayaan ku sameynaa ardayda nagu cusub waxaan leenahay subscribe-ka noo saara asxaabta la wadaag insha Allah waxaan rajeynaynaa bishii soo socoto in 1k aan gaari doono asxaabta iyo ardayda dhammaantood waxaan idin leenahay hala sharagereeyo asxaabta loo sharagereeyo si ay ugu faa'iideystaan wax ay ugu faa'iideystaan kanaalka Sayada Academy. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.